waxaan ahaa wadaad masiixi ah mid ka mid ah kaniisadaha South Africa muddo 15 sano taasoo ay ku xirnaayeen in ka badan 100,000 oo qofood. Sheekadu waxay isbedeshay markaan ku arkay riyo anigoo hurdaya qol yar oo kaniisada ah ayaan maqlay. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada. Tan waa sheekada Ibrahim oo ah wadaad Kirishtaan oo ka soo jeeda South Africa kaasoo soo islaamay mar dhow soona islaamiyay jamaaca uu hogaaminayay taasoo dhan 100,000 oo qofood. Waxa uuna dhahay waxaan ahaa wadaad masiixi ah mid ka mid ah kaniisadaha South Africa muddo 15 sano taasoo ay ku xirnaayeen in ka badan 100,000 oo qofood. Sheekadu waxay isbedeshay markaan ku arkay riyo anigoo hurdaya qol yar oo kaniisada ah ayaan maqlay cod idhahaya dadkaaga u sheeg inay xirtaan dharka cadcad. Waxaan isdhahay muslimka dharkooda. Waxaan isdhahay iska daa waxaan waa iska riyo uune wax saas u weyn maahane. Isla riyadii ayaa igu soo laabatay mar kale haddana mar kale. Markii u dambeysay dhawaqu wuxuu noqday mid xoogan. Dadkaaga u sheeg inay xirtaan dharka cadcad. Kadib waxaan aaday dadkaygii waxaan u sheegay sheekadeyda. Waan u tagay waana u sheegay sheekada ma qiyaasi kartid sida Ilaahay uga dhigay wax sahlan. Way aqbaleen dhammaantood. Kadib markaan isku nimaanay kulankeenii xigay ee kaniisada qof walba wuxuu soo xirtay dharkii caddaa. Dhammaantood way aqbaleen islaamka. 3 bilood ka hor waxaan shahaadada ku qaatay isla kaniisadii. Dadkaygu waxay igu taageerayeen akhrinta shahaadada oo ay iga daba dhahayeen waxaan dhahayo kumanaan cod waxay dhahayeen hal cod taasoo iga daba dhahayeen